بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا هيك قالقة ميل والبنت هذا عالم كجو ولا شيء وماليش إذن دهيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا هيك قالقة رمضان كريم أي إذن لي رمضان مبارك قبل ما من دويت رمضان كريم أنت خذها وحي قلت الله يا كريم مركو قفل بنت قفك أنت مركو وحوشة وإنه واندي سقعته مركا هذا مركا رمضان كريم قبل هذا الكادي يقول صور عدي جزاك الله يا الله ولا شيء قالي وهذا waxaa idin leeyahay ramadaan mubaarak ama soon wanaagsan walaalahayga qaaliga ah ilaahay soonkeena iyo saldeena iyo zakadeena iyo hanaga aqbalo dambigeena iyo dambiga waaridkeena allaha dhaafo mar walba inta isku duceyno walaalaha xanuunsana allaha noo caafiyo walaalaheena intayna kaleentana qofka kaleentaha u qalbi fiyoobaado ha la isku calool fiyoobaado ha la isku calool xaarnaado marka la isku calool fiyoobaado la isku qalbi fiyoobaado ayaa horumar la gaaraya taageero la isku noqdo biidnillah waxaan ilaahay ka baryaynaa Soomaali oo farkali ah ilaahay dalkeena iyo nabada caafimaad iyo cimri dheer cibaado suuban dambigeenana allah dhaafa ayaan leeyahay walaalahayga qaaliga ah waxaan la hadlayaa gabdhaha Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay waa dhiirigelin aniga channelkayga cunto karis wax walba inta ayaa laga helayaa marna walba intana waxaan jeclahay waxaan rabay baryahan oo dhan inaan soo duubo inta ramadaankii markuu soo galay laakiin si waa ogtihiin mashquulka iska badan inta uu orod sa ugu jirtid waxa arkaysa gabalkii kugu dhacay awal waxaa la aadi jiray taraawiix iyo tahajud laakiin sahadartan waa aragteen guryaha la isku karantiila masjid ma jiro meel la aadayo ma lahan cuntada inta jikada kula soo sheekaysatid haddaa sariirta hore ka fuushid balbalaarka maqli jirtaan aa la wada noqonaya intaasna waa kaftan waxaa idin leeyahay walaalahayga qaaliga ah ramadaanka ayaan la isku iloobin marka cuntadaada iyo waxaaga dhan dhamaysatid gabdho walaalaheena ayaa jiraan oo channeladooda exercise waxaasoo dhan ay ku jiraan sida Aisha Lovely ayadana gabadhaas ayaa aad ugu xiranahay maasha Allah maalin walba inta markaan galabkii waxaan ku dhahay awal taraawiixda afurka lagu soo fududeynayo laakiin sahadartan ma jirtaan ku dhahay waa gurigaaga dhex fadhi marka waxaan u maleynayaa markii salaamu calaykum ciidul mubaarak la isdhaho in cabaayad mudeeqda la heli waayo intaasna waa kaftan marka waxaa idin leeyahay walaalahayga qaaliga ah jikada iyo sambuuska iyo saliidda intaan la sheekaysano yaan dharka na deeqi waynin qof walba inta dirac baacweyne iyo buuxina awal baaba balbalaar gabdhihii Soomaaliyeed iska noqdeen waxaa idin leeyahay walaalahayga qaaliga waa dhiirigelin markaa saas afurkiina u dhamaysataan waxaan leeyahay xataa adigoo meel fog aadin gurigaaga dhexdiisa ayaa aalamito ku samayn kartaa waayo adduunka hadartan wuu hormaray waa aragteen youtube-kaaga saas u geysanaysaa halkaasa teleefonkaaga ku tiirsanaysaa ama tv-gaaga haddii youtube ku leeyahay ka geysanaysaa aayar ayaad waxaan ku iri waxaa iska bixinaysaa sambuuski iyo saliidii isku shubtay ilaa awal taraawiix inta aadid adoo maasha Allah exercise way salaada waa aragteen intaasoo saacadooda taagnaanaysa guriga waxa imaanaysa adigoo calooshaada cumaro ka yaraysa laakiin sahadartaan aan ku dhahay markaad bariiski baastadii sambuuski shaahigi meesha ku wada ridid calooshii maxaan ku dhahay maxay noqonaysaa beeshin dhar lagu dhaqaayo marka ku dhahaya walaasha qaali beeshinka dharka lagu dhaqaayo intaada noqonin yaa adiga la iska taxadar macaan badan xaajiga adhooto markuu arka adigoo inta ka weynaatay wallahi billahi labada gacmood kabaha ku qaadanaya marka biidmillah intaan gacmaha kabaha lagu qaadan adiga gacmaha kabaha ku qaadan ku gurigaaga dhexdiisa ku boodbood aalameetay yaa afurkayaan la isku dhex iloobin maalinkii oo dhan wajigaaga iyo waxaaga dhan isku baxay ramadaanka dhexdiisa isku iloobin yaan la is iloobin idin dhahayo gabdhaha Soomaaliyeed ayaan dardaarankan u wadaa walaalahayga qaaliga wiilasha laftirkooda jabaast waa laga fiican yahay adinka laftirkiina guriga dhexdiisa ku aalameetay wallahi 20 kiilo ayaan iska riday maasha Allah biidmillah kariim almost 2 bil hadartan exercise ka hore ayaa u waday hadartaana waa ogtihiin cudurro iyo dhibaato iyo waxba yimaaday soo waxa loo baahan yahay inaad healthy noqotid oo mar walba inta iska taxadirtid cuntooyinkaaga ay controlan yihiin cuntada cunaysid mar walba inta healthy ku noqoto si aad caafimaadkaaga iyo uga warqabtid gurigaaga dhexdiisa adigoo ku jirtid ayaa wax walba inta samaysan kartaa not inaad dhahdo gym inaad aado waay inaad kan aado waay caagadaha biyaha soo qaado caagadahaas ku aalam
mitee waa arkaysaan gabadhaasba iyadoo gurigeeda dhexdiisa ku jirta ayay maasha allah Aisha Lovely ayaa ku qoran markaa soo qortid youtube-keeda waa arkaysaa soo waa arki doontaan aan ku dhahay wallahi bilaahi iyad af Soomaaliya kugula hadlaysaa wax walba inta gabdhaheeni Soomaaliyeed ayaaba maasha allah wax walba inta inaan isku faa'iideyno aan isku soo marino hawada ayaaban diyaar u nahayba midda cunto karis aqoonay midda kale inta walaasheeda ayaan ku dhahay jikadeeda dhag ka dhisaysa hadii ilaahay ku idma gabar ayaa maalin dhaweeytay soo wacday ilaahay khayr siiyo qosol igu dishay walaashay qaali halkaan ayaan ka salaamaya haday dhageysanayso waxay ku tiri abaay macaanto chapati ma aqaano sida loo kariyo waa ku tuugaya garkaaga jilibkaaga haysta abaay macaanay chapati bar markaasaan ku dhahay macaan badan ee maxaa waa ku tuuga ay garkii jilibka keenan ku dhahay diyaar ayaan ku ay wax walba inta aad adiga aqoonin walaashay qaali in aniga ka dhiso marka waxay tiri abaay ha igu qoslin marka waxa la isku qosla ma aha waxa markaad aqoonin waa ina meeshaan aniga markaan soo istaagay oo jikadeeda soo istaagay oo gabar walba inta Soomaaliyeed ee meel soo istaagaysay gabadha kale inta walaasheed waxa ay aqoonin inay ka dhistay soo marka maba ahanba iska dhaadhicinin hadaad waxba aqoonin waa la isku qoslay wax la isku qoslay ma jirto macaan badan cidna ma dhalanin iyadoo wax taqaana cid walba inta waa try grain iyo isku day ayay horumarka ku gaartaa maanta marka wax isku daydid way ka halaabayaan hadda haniya jabin next try garay hadana ma bari marka isku daydid hadana ma sha Allah maalinta koo labaad waxaan ku dhahay saddexaad adaaba sixaysid ba afaraad adaaba macallin ahba oo waxaan ku dhahay iskuulkaaga lagu soo dareeraa waxa laga baranaya marka waxaan idin dhiilaa walaalahayga qaaliga ah maanta waa wacyigelin waa dhiirigelin waxa gabdhaha Soomaaliyeed ayaa wacyigelinaya awalan balbalaar iyo dirac baacweyne kulligood wada noqdeen hadana waa aragteen karantiil ayaa jiro guryaha la isku xiray marka sambuuska iyo bariiskii baastadii aan lala seexan ayaa idin dhihi lahaa walaalahayga qaaliga gurigaaga dhexdiisa adigoo joogtid ayaad waxa iska ridi kartaa kiilooyin adigoo gurigaaga dhexdiisa joogtid ayaa wax walba inta samaysan kartaa biidmillaah waxaa idin leeyahay walaalahayga qaaliga ayaa jikada la isku iloobin yaan bariiskii baastada lala seexanin intaasna waa dhiirigelin walaalaha Soomaaliyeed waliba gabdhaha Soomaaliyeed hooyooyinka Soomaaliyeed ayaan ku dhiirigelinayaa biidmillaah ilaahay waxaan ka baryayaa casiiska cisaa wajalla caafimaad sareeca ilaahay inuu noo soo dejiyo kan ilaahay inuu nooga dhigo mid aan ku cibra qaadano oo dambi dhaafkiisana wata ilaahay rabbiga raxmaanka ah soonkeena iyo salaadeena ilaaha naga aqbalo walaalahayga qaaliga la isku calool fiyoobaada la isku qalbi fiyoobaada marka isku calool fiyoobaano ayaa mar walbeento Soomaaliyeed aan horumar gaarayna maanta waa aragteen wallahi billaah meel 40 qof iyo 50 qof hal marka dhimanayso xanuun cayaar ah ma jiro marka waxa idin leeyahay walaalahayga qaaliga culimada sorry عندوفتا بيقول مرقتي وعدي علماء هلا دقيستو دتك قف والبا انت قفك كلا انت waxa uu sheegay ha dhageysto faraha la iska nadiifiyo waxa idin dhahay wallahi marka annaka aan ilmaheena iyo guriyaheena iyo iska taxadarno biidmillaah ilaahay wuu naga taxadarayo laakiin marka hore inta koow aan iska taxadarno marka iska taxadarno ayaa raxmaanku naga taxadari doona biidmillaah kariim walaalahayga qaaliga ah hadal badan ma wadin laakiin waxaan waday dhiirigelin oo ku dhiirigelinayo gabdhaha Soomaaliyeed oo gurigaaga adigoo joogtid ayaad wax walba inta sameyn kartaa gurigaaga adigoo joogtid ayaad waxaad iska ridi kartaa kiilooyin gurigaaga adigoo joogtid ayaad aalamiteen kartaa gurigaaga adigoo joogtid ayaa waxaan ku dhahay walaashayga qaaliga ah ayaa wax walba inta sameysan kartaa waxaan idin dhahayaa jikada ayaan la isku dhex iloobin sambuuska iyo bariiskan ayaan lala seexanin biidmillaah walaalahayga qaaliga ah xayeysiin igama ahan waayo gabadhaas waa gabar Soomaaliyeed gabar walba inta oo Soomaaliyeedna waxay u baahan tahay in la taageero waayo annakaba taageerihiina ayaa meeshan ku soo gaarnay soo walaalahayga qaaliga ah inta channelkayga ku xiran waxaan leeyahay soo dhawaada walaalihii hore ila joogeen waxaan leeyahay gambarqaata meesha ka tagnayna barkintiina dheereysta biidnillaah waxbaan kala faa'iidi doonaa walaalaha kale inta cusubna waxaan idin leeyahay soo dhawaada shaax kulul alla idin shubaya biidnillaah kariim walaalahayga qaaliga buskud iyo xawla mardhowna soo socdaan waa cunaysaan soo walaalahayga qaaliga ah iyo soo dhawaada gambarqaata gurigeena waaye walaashin daaqo waaye aliisha waaye kusoo dhawaada channelkeeda walaalahayga qaaliga ah biidmillaah kariim waxaa idinkaga tagayaa wabilaahi tawfiiq iyo iyo hala aalamiiteeyo bariiskayaan lala seexanin biidmillaah kariim waxaa ballan noo ahan ku iri barsada guriga inta rooga iska leexisid boodbood aan ku dhahay boodbood caruurta markaa seexisid aan ku dhahay oo xaajiga
cashadiisa iyo wixiisa dhan u diyaariso waxaa ku tiraahda asaga laftirkiisa aboona kaan sarwaalkaaga jaf isku sii gurigeena dhexdiisaan ku dhaha xagga iyo xagga iyo xagga u kala boodbooda biidnillaahi kariim waxbaa kala faa'iidi doonaa idinkana waxbaa idinka faa'iidi doonaa soo dhawaada minankiini waaye haruurina biidnillaahi kariim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa walaashin umaaliisha oo idin dhahaysa inta kheyrka jecel iyo samaha ii soo dhawaada inta xumaha jecelna ilaahay wanaaga ha idin waafajiyo kheyrkana allah idin waafajiyo ayaa idin leeyahay jazaakum allahu khayr wa axsana zaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu